oo iska shaydaanka iska naarnaa ootin waa aadi kartaa gabdha israaci kartiin waa aadi kartaa markuu ku wadaa gabar saaxiibtay wadaa baroowe wiilaa ku dhahay aniga oo ka imaaday Canada waxaa ku dhahay waa ku wadaa uu dhahay markaas aad okay waxaa baxeen ahaan dhahay milyan gabar la guri ii joogto ii faa'iisadeena dhahay anaga dhan Cabdiraxmaan keena waa dhaay ma qabiilkiin dhantan niwada dhaay الرحمن الرحيم وعن ونكسن داوديال ميل والبود جوكتان إيسي والبود نو داونيسان كلنتي ونكسن أيان إذن لين هاي halkani waa TV-ga Home Cable maantay waxaan qabanaynaa barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayno dhibaatooyinka dumarka loogu geysto guurka qudbisirada ah barnaamijkan waxa uu noqon doonaa barnaamij ay ka doodaan gabdhaha meeshan ila fadhiya sidoo kale waxa barnaamijka iyagana aan ka marnayn oo aan ku marti qaadnay qaar kamid ah gabdhaha ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi barnaamijka waxaan idin socodsiinayaa anigoo ah Cabdishakuur Faarax Igale waxa dhinaca kaamirada quruxda badan inaga saacidaya ama inoo duubaya Cabdirashiid Obsiye iyo Cabdifataax Jante hadii gabdhaha boorka igula sugan ama igala qayb qaadanaya barnaamijka ah mid magacooda idin kugu sheego waa dhankayga midig hadaan ka bilaabo waa Samara Queen ayaan aragsan iyo Fartuun Habi waxay kamid yihiin gabdhaha inta badan dhiirigeliya gabdhaha wacdiya waaniye ee mar walba wax u sheega dhamaantoodna waxay caan ka yihiin oo lagu yaqaana inay faafiyaan wanaaga dhinaca social media hadii ay tahay Facebooka Instagramka iyo qaybaha uu ka kooban yahay social media waxaan ku bilaabayaa Fartuun Habi Fartuun ku soo dhawow barnaamijkan waxaan kaga hadlaynaa dhibaatooyinka ay kala kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Nairobi guurka qudbisirada ah kaasoo dhibaatooyin badan la sheegay ama ay sheegeen inuu ka soo gaaray bal adigoo magacaaga ku bilaabaya sidee u aragtaa barnaamijkaas Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horreyn walaalahayga qaaliga aan jecelahay dhammaan meeshan ka wada muuqdo gabdhaha quruxda badan oo naga soo qayb galeen barnaamijkeena oo ku saabsan guurka qarsoon maasha Allah walaalkay Cabdishakuur waa ku mahadsan tahay sida su'aasha ii weydiisay maasha Allah dhibaatooyin badan Nairobi waan arkay dad badan oo sidaas oo dhibaatada marxaladda xun haysatana waan arkay gabdha marka anima ila fiicna ahaan oo Fartuun doodana ka qabaa gabar walaashay oo dhiban oo rafaad martay ninkii inuu wuxuu doono iska sameeyo ayuu ka tagaya gabadha waxa dhiban waa gabadha walaashay muslimada dhibka ugu weyn ayada ayaa haysto dhibkaasiina marna iida isku keentaa la dhihi karaa marna ninka ka aqli badiyaa la dhihi karaa laakiin inta badan Soomaalidana qadara kuma marsiyoona inkasta laakiin qadar ahayn waxa dhihi lahaay aniga waa waxa anaga isku keensano anaga qiimo leenahay waxa leenahay maxay sharaf cizi karaamo gabdhaha adduunka waxa way ma la heli karo dhalinyartan iyo wadaadadan iyo maasha Allah wax dhan yaa dhal hooya dhashay hooyo qiimo leedahay marka ina isqiimo tirna maahin waxa aaminsanahay hadda aniga rabo inaan guursado waxa heli karaa guur xalaal hal waqti ha cuno hal walax acabo laakiin waxa heli karaa nin igu faraxsan oo ii jecel ma ahin ina laakiin mid iga tagaaya ama maalin ama laba bil in oo farxad yar ituso kadibna nolosheeda ku baabi'inayo ani ahaan oo Fartuun oo gabdhaha jecel inaan ka waaniyo ma ogolno waa ka soo horjeednaa mana jecelno wiilashana inay noo sameeyaan waxaaseeti diyaar kama nahna doodana ka qabnaa waxaana rajeenayaa inay rageena Ilaahay ka cabsado oo xaq Ilaahay tuso ee naga deeyaan waxa ay gabdhaheena yar yar ka hadda soo baxaya ee ku wadaan Fartuun waa mahadsan tahay dib ayaan kuugu soo noqonayaa markan waxaan siinayaa ayaan aragsan ayaan maxay tahay baahida ku qasbaysa gabdhaha in guurka qudbisirada ah ay ogolaadaan ama ay ka ogolaadaan ninka waliba asagoo xaas hal iyo laba xaas ama saddex xaas leh in ayada ay afar ku noqoto oo la qariyo maxay tahay baahida ku kalifaysa isleedahay awlan assalaamu calaykum dhamaan waan salaamayaa gabdhaheena muslimiinta iyo inta daawan doonta barnaamijkan rag iyo dumarba horta Cabdishakuur marka hore waa mahadsan tahay sida quruxda badan ee aad noo casuuntay isla markaana aad noogu sharaftay xarunta Home Cable TV horta anigu dood baan ka qabaa inta badan barnaamijkaas dhagaygu ku maqlaa waana arkay dad maartay gabdhaha inuu saaxiibnahay oo maartay ay ku dhacday arintaasi ani waxaan dhihi karaa horta dhibaato kasto ku haysato in sharaftaada nin aan waxba ku dheereyn oo adiga aad hooyo u tahay oo walaashiis aad tahay oo aad la dhalatay oo aad u dhaxday in 2 bilood ama 1 bilood wax la mid ah intuu kugu ciyaaro deedna uu ka tago anigu horta sharaf uma arko gabdhahan waxaan dhihi karaa lax walba meesha istigtaa lagu gowraco Soomaaliku ma madasma anaga isnignaan leena halkaasi ninkaanito haduu ii baahan yahay waa inuu reerkanaga iga doontaa uu maxaan ku iraadaaye calaf ma sheegin aniga haduu doonahay furo laakiin waa marka hore sida gabar loo doonan jiray oo ii doonto
oo markaa ii guursada haddii aynu ku heshiino laakiin wixii kaloo ka sokeeyo waa ninkaas waxaan leeyahay wuu iska fasaxan yahay gabdhaheennana maskaxda abaayada fartuun waxay ka dhawaajisay in micnaha laga aqli badiyey horta marka hore waxaa la dhahay kaadi badani waa loo gogol badiyaa biyana intii kusoo gaarnaa la iska moosaa ninka marka horeba dhaqankiisa iyo saansaantiisa haddaad aragto inuusan mustaqbal kaa rabin wax teemkaaga xitaa mustaqiiq inaadan la hadlin oo ama iska baloogtid inta badan hadda aaladaana la iska bartaa social media ina ama iska baloogtid ama adhaad in adeero macaano dad muslim ahaan hoo soomaali maxamed ayaan isxumayn banaanka aan kala marno haddii marka hore aad aragtid inaad adigu qiimo leedahay oo aad sharaf leedahay oo ilaahay subxaana watacaala uu ku karaameeyey nin iyo wixii la midna waxba kaama qaadi karaan waxaana markasta gabdhahanaga aan ka codsanaya inay maskaxdooda geliyaan ninka markuu leeyahay naagaan qabaa naagteedaan ka cabsanaya naagtii inay 9 bilood ku dhalatay adna aad 9 bilood ku dhalatay inaa maskaxdaada ay geliso oona waxaas aysan ka yeelin jilaacaas aan laga arkin gabdhaheena oo ay intay ka helayaan calafkooda aysan waraabaha isku looginin cadow waaye haddaa isku loogtidna balaayaa kula tegayso marka gabdhaheena soomaaliyeed waxaan leeyahay ha ka foojignaadaan sida ay waxbarashada ugu dadaalaan sida ay maxaan ku raadaan in isqurxiyaan oo maxaan ku raadaan sharaf wadanka uga yeeshaan ay ugu dadaalaan mustaqbalkoodana ha ugu dadaalaan hana ka fikiraan sida hooyo cunugay dhashay oo kale ay u ilaalisa sharaftooda ha u ilaalsadaan Allah gabdhaha Soomaaliyeed waad mahadsan tahay Samara Queen waxaan u maleynayaa barnaamijka in dood badan ay ka dhalan doonto markan waxaan u soo laabanayaa Samara Queen Samara waxaad ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha dhiirigeliya ama wacdiya weli ma maqashay guurkan gabar lagu dhibaateeyo kale weli ma la kulantay mise ma maqashay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبلها ولا عليها هرتي فري وان سلامة سيدو كله دتك تي في هو كابل تي في يقداونا يو آذان وقوم هدعنا وقت جانس كنسيان سيدو كله ولا الكينا وماسين هاي هدي أنا عن جودة قلب برامج كا فرتوني أنا هرت أنا وانكسر جدا oo fikrad hal fikrad waxa waaye waxay dhaheen sida fartuun ay ka dhawaajisay macnaha waa laga aqal badiyay camal oo kale aan misdhigi kari in ay sheeg laga aqal badiyay sabab ognahay hadda badana waxaan waa wax macnaha oo dhaco oo caade ka dhigtay Soomaalida in gabar adigoo qabtid inaad sheeg adana xaas kale naakal u baahnaatid kadib aad ka qarisid oo iyadana ay sheeg raali kaaga noqoto ay guursato laakiin taas aan ilama fiicno sababtoo ragga ayaga markii ii sheeg aad dhahdid aniga naaga kula guursana markaa dhahdid markaas waxay ku leeyihiin afar ilaah noo bile waayahay Allah subxaana watacaala afar kuu banay waay aad u qarinaysaa geesnimada aad la soo istaagaysid Allah ayaa ii banadhaysid ma geesnimaas ma ku ekaatid oo xaaskaaga maad u sheegatid ilaan Allah inuu kuu baneeyo waaba og tahay soomahan inaa u sheegtid waa dhahdid ii sheeg aniga naagan guursan rabaa qofka markaas haddii uu ku qanacsaneen oo kale markaas oo kale يعني وقنعين كرتا ناق واي أنا ملينا ناق إن معناها إيش أقول قنعين كرو هدي قفكاس جعش هاي إيمان كاجس كدوقصو وناك لها دمعين وناك تظهر لك وكهدي لكن ناك كلسون كقبن أنا قنعين كرين جبر كلا وقتي وحبها كل منن هانا قيام من علنها وقتجن هرت وحنا معنا وح باهي الضاي واي يعني رج يدمر كوا حنا إلهي يسكو مسماهن والسكو ذا باهي هاي إذا السكو ذا باهي هذا أساس إيه هاي وحافي عن إن معناها وضد الصحة ذهات وضد السنة ذهات وضد الإسلام ماذا إن الصوم مرة وجبر رير كذا لقى دونتو أو سيد رقم كهات أما دين تنو شيء جسو إن جبر رير كذا لقى دونتو لجورسو شرف لجورسو حكى في عمران هدي أناك هذا هذيك هدي ناك أقبتد ولا لو ناك هذا أتكلسون ما جسني بس ما كوي كاتد أو حاس كاج ما تقول شيء جتد إلا الله إنه كوب مني واب أكتها سماهن إن أوشكتد وأده هديت إيش أنا ناقة جورسن ربا قفك مركز هدي وكوقنا عسلين أو وكوقنا عسلين أو كلا مركز أو كلا يعني وقنعين كرتا ناق واي أنا ملينا ناق إن معناها إيش أقول قنعين كرو هدي قفكاس جعش هاي إيمان كاجس كدوقصو وناك لها دمعين وناك تظهر لك وكهدي لكن ناك كلسون كقبن أنا قنعين كرين جبر كلا وقتي وحبها كل منن هانا قيام من علنها وقتجن هرت وحنا معنا وح باهي الضاي واي يعني رج يدمر كوا حنا إلهي يسكو مسماهن والسكو ذا باهي هاي إذا السكو ذا باهي هذا أساس إيه هاي وحافي عن إن معناها وضد الصحة ذهات وضد السنة ذهات وضد الإسلام ماذا إن الصوم مرة وجبر رير كذا لقى دونتو أو سيد رقم كهات أما دين تنو شيء جسو إن جبر رير كذا لقى دونتو لجورسو شرف لجورسو حكى في عمران هدي أناك هذا هذيك هدي ناك أقبتد ولا لو ناك هذا أتكلسون كقام مسنك كسنكر إن أناك الأجورستد
ha ku degdegin aan dhihi lahaa oo gabadhaasita mustaqbalkeedana ka fikir labada gabdhoodna ha isku dilin badanaa hadda dumarka ayaga way is eedeeyaan waxyaalo kale ani waxyaalo social media oo waxaan ku arkaa waxyaalo oo markaas oo la isticmaalo oo ah lacala haddii kuma laho gabadha lagu qabo haddii telefoon ka soo wacdo ma ka qaban lahayd qaar waxay ku dhahaan telefoonka dhanaa block saara haddii ku soo martido ka waran macnaha soo dhaweyn lahayd maya waa dilna suna u qaslaa ayaa u sabab waxa dhigi kara waxaa waaye macnaha ragga waa waxa u sabab labada dumar ayaga haddii Soomaalida badan horta in horta qofka uu gabadha la guursado macnaha waxaa waaye sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam nimanka ilaa afar oo bani Soomaaliya waa la guursan karaa maxaas macnaha wax ceeb ah ma ahan waa wax caadi ah laakiin hadaartida la guursid waa inaa si fiican wadada saxda u soo martaa gabadha ii sheeg ayada si tan shalay u sharaftay u soo guursatay waa inaa iyadana teedana gabadhan kalena aad sharafta soo guursataa reerkeeda ka doonata labada xaq hadaa sintid markaas nin mas'uul aan noqon kartid oo xaq labada gabdhood aad qaadi kartid markaas aniga waxaan dhihi lahaa xaaskaaga horta marka hore ka soo kadib masirtir ma la dhahay waxaas xaaskaaga si kadib gabadha kala guursa laakiin haddii xaaskaaga aad ka qarisid أنا إيشك أو ناقة كلنا أتقيانتو أو سلعسو أنا قرت تاس رالي كمي قبل إلا سلعي رالي كمي إن سشرف للودون تلو جورسدو قبل البوكا من السيد قبل أن أقول أما ولا شيء هذا أقول يونس إني لو صد دونتو وما شاء الله كاسو دونتو إذا قبل أن رير كيد أما ولا الكيد وباهي إن لو صد دونتو أو سشرف للو جورسدو مرك أنا وحندي لا قبل هدي عادي شيء أو ضباهنت إلا رجع تهرج إلا محالة هاي معناها جعل ما هني وحوض بعد دمع ويدمع بدين سيد بدن دمع صح محمد marka hadii gabar kale aad rabtid ma lagu diidino alxamdulillah marka hor Allah haduu ku bani hadii la banaan balka hor hadda halna lagu ekaan la soo dhib maalin laakiin Allah subhanahu wa ta'ala mar walba macnaha ina wuxuu macnaha ilaalnaa mar walba ina xaaran ku dhicin ina macnaha xaaran ku dhicin oo waxyaalo qaldan aan sameeynin marka إيشك وحفي عن إناد ده حاسك لا قبت حاسك وشكت قبل كلنا رالي هدي إذا كتاي ومركز ناقن قوا ولا لي ميجو أقشاي ميجو رأسنت هدي رالي كتاي مركز جورسو حاسك هدي رالي كتادي لكن لبض رالي كأنه حنديلا إسكيلو قبل بنانك وحاسك جت إيشك مرة إذا مركز دم كذا هو قبل أصلا قيام من هان سرعنا لبض رونه هسكت دلنا ديلا إن واد ما تسنتهاي سمارة كوين سيد قروح ذا بدن يعد وشرح ذي إن gurka qudbisirada ee maanta laga doodayo in laba un kala qaadayna in mid waa mid xilli hore jiri jiray oo ah in ninka intuu gabadha qudbisiraysto kadib uu reerkeedu ka doonto in hadda waxa soo baxay mid ah in ayadoo og inuu laba naag ama saddex naag qabo inay qariso in taas waan ka doodno oo waan aragnay in fartun habiya waxaan weydiinayaa in su'aal ah in waxa jira dumar ayagana qudbisirada jecel oo ragga ku qalqaaliya inuu qudbisreysto bal ka waran ayagana sax taas beenta maahan way jirtaa waana arkay laakiin waxa ku kalifay siyaabo leh ku kaliftay siyaabadaas iyadoo ka maarmin karto haddana waxay sameysay in ay gasho ee sameyso qudbisrada ee ogolaato waxa laga rabaa adiga haddii dhibaato walba ama marxalad walba kula soo wajahdo waxa ugu bixin kartaa hada qof Allah subhanahu wa ta'ala u dhow tahay oo diintan u dhowdahay waxa sameyn kartaa baahi lacag arta Soomaali ninka lacag ku sheegay gabadha horta iyadoo lacag loo sheegin maal loo sheegin adduun loo sheegin nacamta ma dhayso gabdhaha qaarkoodana familiyahooda way ku yartahay wadankan waxay la joogaan waa qaraabo waa saaxiib waa ayeeyo ama habar yar karood amal ala joogaan maana marka waxa keenaysa dhibaatadaas keenayso gabadha waa dhalinyaro waxay u baahan tahay wax waliba shoobin u baahan tahay wax walba u baahan tahay marka wiilkaanayta markuu lacag tuso saddex qaba 10 haduu qabo xataa meesha haday lacag imaato gabadha waxa lacagta u jeedaa nolosheeda isbedeshay Soomaan marka waxa lahaa xataa waxa keeni karto rag lacagta leh ama rag caanka ah oo Nairobi zaid loogu yaqaano inay uga faa'iideystaan jaanisiyada gabdhaha quruxda badan cadaanta badan istiraayo in ay ku soo jiitaan beeso laakiin ma ahin in lacag ku soo jiitaan waxa dhii lahaay gabadha ayada u sabab waxay sabab ugu tahay haday iska deyn lahayd ee lacagta iska dhaafi lahayd ee shaqaysan lahayd ku shilin $10 qaado hadaaratid laakiin waxa kaaga fiican oo na kaaga fadli badan nadiif ayaa tahay ma qudbisiraysanid maluu u reenin jid ma laga tagin ninka maadan waanin Mareykan ma aadin ama Nairobi ku dhaxdhoomanin gurigaada joogtaa fresh ku taa calooshaada wadada doontaa hele mid waxa helaysaa taash ku siro
oo he arooska adduunka kuu dhigo sharaf iyo cizi kuu yeela ayaa helaysaa adigoo heli kartid nin ku cizeynaa ku sharfaayo maxaa kuu geeyay nin 2 qabo oo ka dhammaatay mise 3 qabo oo calool weyn oo beesa caloosha u deestay oo alla ka cabsiga ku yaraatay oo xasuusan waaya xataa gabadha u dhalay inay marxaladaas la marsiin karo oo xasuusan waayo oo ilooway asaga gabar ayuu dhalayaa gabadhoo dhalay ayuu wuxuu gabdhaha ka jar laga jarayaa ma ku xisaabtamaayo beesadaas u jeedaa 2 bilo ku qabaaya kadib waa ku furaya 2 bil kadib waxaa laga yaabaa miskiinta iska walceesa waa rafaade habarirta adeeqaad bilaa ka taagneed cunuga uu dartay u geenay marka irid iga baxlan dhaasahe waa baxday gabdha soo aragna anaga wallahi lacaga u aruurinay way rafaadeen darad dhawa uu dambeysay gabara iyadii cunugeed isku dhinteen lacag la'aan darteed mustafshaa wax ka bixiyaa la waay dhakhtarka wax ka bixiyaa la waay maxaa keenay inay gabadhaas dhibaatooto nin ayaa keenay wuu imaaday Mareykanku ka imaaday wuu khusirasto wuu ka tagay hotel 2 bil miya ama half bil ula seexday iyada halaba xataa ilaa uru iska siin kara miskiinta ilaa wuxuu wato waa gooni laakiin gabadhan waa iqaab oo uurkaas lagu iqaabayo waa iqaabtas marka ha isgelinin waxa kaaga wanaagsan adiga u dhawaat Allah subhanahu wa ta'ala oo waxa soo dhan ka magan gashid ninka kula imaadan iska burisid teeda kale marka nin baratina awalan waa ina u istiqaaraysataa because shar haduu yahay iyo haduu xun yahayba Allah subhanahu wa ta'ala wadadaada uu ka leexinaya marka waxa dhilaa gabdhahana sabab ay u yihiin adigoo awoodid marxalo waliba aad ku shaqeysan kartid ama aad ku raadsan kartid lacag aad ku heli kartid ma ahin inaa nin le ka sugtid adaa shaqeysan kartid ilaa cid ma u shaqeysida cunto u karisid sharafa leedahay waxa sharaf ku leedahay lacaga helaysa oo ku nadiif oo nin ku siinin oo kugu uureeneen ma dhijir astaghfirullah oo inoo kugu aroos ilmaha kugu inkireenin helaysa marka adigoo heli kartid ma ahin inaa sameysid waa qalad waxyaalo fudud ayaa qabsan kartaa dugaana ka shaqeyn kartaa sharaara ku xiran xashaaxa gadi kartaa cunta gadi kartaa aniga niil hadlaa fartoon waxyaalo badan waa ka soo shaqeeyay Nairobi ma ahin shaqadan ceeb waa sharaf iyo cizi ee gabadha muslimada ee leedahay adigoo xijaaban dhan waliba waa u isticmaali kartaa hadaa rabtid inaa wax qabsatid laakiin ma ahin inaa gurigaada fadhisid qadka gashid Facebook kan suudo wata taajir waa alle lahayn ishiisan ka dareem inaa dhahdid ma ahin adiga taajir lixdaada qabta caafimaad isagoo taajir wuxuu raadinaa dheeman qurux badan oo taagan xijaab wadad muxuu ku raadinooyaa wuxuu rabiyaa inuu kugu sariibto wasaqdiisa marka ka dheerow intuu kugu sariibanin adiga carar because si sharaf leh 5 guuro ku dhigi kara way oo ku qariim xitaa 100 guuro ku dhigi kara way oo ku qariim xitaa waa dulmi xaasinimo xiqdi ma ahin galgaceel lacagta galgaceel ma keento waxa galgaceel keena midka ku sharfaayo oo walaashiis xasuusto oo ilmuhu dhalaaya xasuusanaya wuxuu ku dhahayaa abbaaya aniga guura u baahanahay eelkaada ka doonana laakiin anagana waxaan dhahnaa ninka haduu waxaysanin loogu carraa wax la'aan si loo joogaa mid oo ku qubsiraysaa la hele wax la'aanta ku dhaamo oo garabkaada soconaya hal roota kala goosatiine taasa ka fadli badan inta loo qarin lahaa meel lagu ogyahay hooyada meel ku ogtahay hadda gabadha daraad sas u silceysay waalidkeed gabar ay ku ogaayeen cunuga ku soo siyaada lama ogo ilaa maxaa laga ogaa isliya weyn ee ka dhax qaraabano saay meel laga ogyahay ma lahan marka waalidiinteena sumcad darada iyo sharaf darada inaa ka ilaalino waaye intaanayna soo dhameysiyeen waxayna soo bareen diinteena iyo tacliinteena quruxda badan ma ahin inaa hooyadeena cudurro u keenno waalidiinteena aabba dhan oo aabbaha ugu faanay dhahay gabadhay alle leeyahay 100 halaad meelahaas maahay ka yar ma ku siinaanin dhahay hada dhulka ku jiidi ka waran cimaamada soo ma dhigay marka waxa la rabaa aabayaasheena iyo hooyayaasheena in aad madaxooda kor ka dhigno teeda kale adaa ku xigtid waa kor inaad iska dhigtaa dheeman ayaa tahay adduunka hadii dheeman aad ku xisaabtan taas inaa qaali tahay awalan ku xisaabtan qaali ayaa nahnay marka waa inaa sharafteena iyo cizigeena kor u qaadnaa ayaan dhihi lahaa aniga su'aasha hadda aan ku weydiiyo kale waxaan weydiinayaa ayaan aragsan dumar badan oo jira ayagana jecel in la qariyo oo qodbasirada jecel bal ayagana ka waran gabar sharaf leh oo iimaan leh oo quraanka naga kariimka soo baratay oo maxaan ku raad waalidiinteed si edeb la u soo barbaariyeen la baray wuxuu yahay guurka xaqa uu ninka ka mudan yahay iyo xaqa uu guurkaaga iyo guriga hooyadaaba ka mudan aan horta isma dhahayo waxay raadinaysaa guur qarsoon iyo nin laba habeen hotel la seexdo ama wax ka yar adigu isbuuc la seexdo Soomaalidu waxay dhahdaa adkayso hore ama afeefi maxaa la jira adkayso hore ama maxaa la jira afeefi hore ama adkayso damba mid lahow marka gabadha Soomaaliyeed xitaa hadii duruuf kasta ee qabato Nairobi ku qabato waxaan horta isma dhahay guur qarsoon raadinaysaa hadee raadisan Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga ayaa wax haleeya asaga ayaana wax hanaaji Ilaahay haleemidaas anigu horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala gabdhaha Soomaaliyeed oo kuma baryaayo tii ku dhaqaaqadina xalay Ilaahay ka hanuuniyo
marka waxaa halbaa marka naga maqan gabdhaha horta Soomaaliyeed waxa kaliya ay haystaan horta yaa garanaya qof hal waxa uu leeyahay gabdhaha waxay leeyihiin yaa garanaya hal hanti oo haysan yaa garanaya yaa ay garanaya gabadha waxay adduunka dhanba gabadha lagu sheegayo waxa ay hanti u leedahay yaa yaqaan waa sharafta iyo gabarnimadeeda haddii aad garanayso marka hantida dhan ee adduunka nin lacag uu leeyahay maxaan ku radaa nin raga waa boqoloo waaye maxaan ku radaa xitaa tusaale u fiiriya hadduu naag waayo oo maxaan ku radaa xitaa uu dhaha maanta ninkaaneeto si kale ama fool xun yahay ama imagine kuma qancina isdaadid naagaa qaadanayso somaha laakiin aniga waxaan leenahay wax ama 30 daqiiqo ama gabadha oo xitaa oo gabarnimada fiican hal saac lagu jibin karo marka aan eegna marka gabarnimada aan leenahay sharafta qof dhan adduunka bal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hantida uu siiyay waa gabarnimadaas somaha marka hadii gabarnimadanadii aan fahansaneen qiimaha adiga leedahay iyo waxa sharaftaada ay tahay waxa Ilaahay uu ku karaameeyay nimanka u eeg sarwaal iyo fanaanada la xirto shaati xijaab aan loo xiray inna shareer aan la faray maxaan ku raada sigisaan aan la faray Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu dhaashanta calaacad xitaa yeesan muuqan haday muuqdaan xitaa halka inta ma jira inaa banayso Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka saas wuxuu noo far inaan asturno maxaan ku raadaay aan iska asturno nimanka rag iyo damac waa dhashan Soomaali dhigi jirin hadii marka maanta ninkii aad isku qaawisid ama qamaar yar u xiratid ama maxay toolay shirwaal iyo sanaan shaatiga asaga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu xiradhahay la xiratid muxuu marka u maleynayaa ma garanayo marka qiimaha aad leedahay istus marka aad ina qiimo leedahay xitaa markuu kula hadlay u fiirsa hadalkiisa dhami dhuux hadal qaldan yaan lagu dhihin waliga hadii marka maanta lagu dhaho laga arko ishaada in maxaan ku raataay lagu qodbasreysan karo ama laga dhaadhicin karo in maxaan ku raadaay lagu qariyo 2 bilood ka bacdeen ku soo shaacbina xabiibti dib ma lahan waa heshiina wax kasta waa ka heshiinayna xabiibtaas ku sheeg marka ay guursatid xabiibti dhexda horta marka ay guursatid hooyaday macaan ay iga doonatid hooyaday macaan ay ku farxdo guurkeyga waxba ha iga bixinin hadarto meel maxaan ku raadaay anaga seexana hal qol waa isla bixinaa lacagta soo shaqeeyna ama soo shaqeeyna waa isla degeena waxba yaan cunin dariska kula degan digsi ebra dabka u saar ina cunto karsada hal malay ma fahanti laakiin hadii lagu qariyo oo maanta sharaftaada aniga wala horta aad uga xumaada gabdhaha markaan arko gabar ama qodba siro lagu sameeyay ana hadda koor gabar aan isku jaamacad ahayn marka aan xitaa xanuunka ka dareemay ana u maleeyay wala in lagu sameeyaan ku dhaha bil dhan ana waxaan cunno waxaan cabin xadinta iga qabatay le ma fahanti marka gabar jaamacadeed dhigan jirtay waalidkeed lacag ay u soo diraan jaamacad ay ka bixiyaan waa gabar sharaf leh maanta waxa leeyahay gabar Allah cuntada u diyaariyo hooyada gabadheeda jaamacad jirta cuntada u diyaariyo dhar hebel u soo gada maanta maxay u baahan tahay qolka loo soo hagaaji heblaha soo socday qolka soo hagaaji jaamacad ka timid buugtii laga taaban bal u fiirsi qiimaha lagu yeelay gabadhii nina qodba sireystay maxaan ku raadahay urbay yeelatay hooyadeed baa ogaatay ma wala caala qarin karaa waa aragtay markii awalacdidood lagu qabo sidii lagu bahalkeena inkastoo anu aan walcin walina de aan afaarahaas gaarin laakiin wax kasta isha kala socda samaha marka adoo og inaad qiimo leedahay oo maxaan ku radaa gabadhi way israacday jaamacadii way dhigan weys uurka ku soo weynaaday hooyadeed waxay oola tagtay ma lahan rafaad ina anaga ardayda jaamacadda aan wax isku aruurino meel dejino hooyadeed ay dhahdo gabar saaxiibtay ah la jilaa oo xitaa magac been la ii saari oo aniga la saaxiibtay la jira xanuunsan oo isbitaal jiifiya ka dhacday ma fahanti marka hadii aad ogaatid ina gabarnimadaad inta gabarta horta qiimo leedahay mar haduu nin inta maxaan ku radaaye doqon aan qiimaha garin inta dircaaga u furto oo berina suu doonta ka yeesho wax faa'iido leedahay malaha adoo gabar aha oo asturna oo xijaab qabtid oo qurux badan oo ilaa hadda abaay waxay ka dhaadhicisay gabdhaha micnaha in ama shoobin u raadsato waxba hadda maxaa iga muuqdo bashoobin maxaan ku radaa macadaan baa u baahana alxamdulillah midabkayga aan ku qanacsana haddaan si kasta u madoobi xitaa oo hadda wax oogaa dadka waa dhex socon karaa aan u ekaa qofka in shirarka qabtiina u eka xitaa ina maxaan ku radaa nin daa ama shoobin aan rabaa oo ugu tago iyo qudbasreysto ama maxaan ku radaa wax kale u baahan iyo qudbasreysto never digsiga naagan shaqaalo u noqonaya weelasha u dhaqaa ilmaha xafaayada uga bedelaay intuu nin aan ii qalmiinta dirciga iga fara birina ilma aan awood iyo tabarteeda mid ahayn oo maxaan ku radaa uga tagi lahaa aan way sharafteeda ku weyn lahaa ilma Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa bixiyo sharaf ku raadi ma garateen marka gabdhaheena Ilaahay uu shafray oo Ilaahay uu ciseeyay oo Ilaahay uu karaameeyay oo haddana hooyooyinka horta ani isma dhacayo horta nimanka dhan way wada xun yihiin alxamdulillah wiilal fiican aan la dhashay garabkeena aan saacideeyo wax noo sheego xitaa u fiirso wiilasha qaar si u sharaf badan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu karaameeyay bal fiiri waxay ku dhahayaan walaalay macaanay miyaha aniga mar rabo in lagu xumeeyo ama nin kale uu ku xumeeyo xitaa day waxba isu ku shukaansanaya dadkan waxa u maleeyaa markii in wax la isugu qabto in la sheekaysto ama in la isku shukaansado ama in meel hebel la isku raaco ama in maxaan ku raadaay ninka soo doon loo sameeyo ninka inta aad soo doono aad ka sameeysan lahaa saa doonta ka sameeysa adi
tus inaa gabartaa inaa qiimo leeda tus inaa maxaan ku rahdaa adduunkan xitaa haddii gabarnimadaada lasoo raadiyay gabar kaa qiimo badan adiga keliga u fiirsa gabdhaha soomaaliyeed oo dhan xitaa gabdhaha soomaaliyeed waxaa u dhiganta hal gabar oo ilaalisa gabadh sharafteeda ani hadda haddaa awoodo waxaa sameyn lahaa hal gabar oo asturan oo wadaad ah oo gabdhaha le qunfulkoodii farahooda la u hayso bas si aa gabdhaha loo qadbusraysan ama sharaftooda loogu ciyaar laakiin ilaahi subxaana watacaala awooddaas nama siinin ee ilaahi subxaana watacaala waxaa awood noo siiyay adiga keliga inaa iska adkaatid maxaan ku rahdaay marka culays dirinta aasoontid salaadid adkaar qasatid maxaan ku rahdaay kitaabkaaga aa wehelka dhigid nin waxba wehelku uma noqonaayo cunug maxaan ku rahdaay aan aaba lahaynna ilaahay ma siiyaba ee waxaa samaysaa markaa cidlootid qur-aanka ka aqriso markaa cidlootid saaxiib wanaagsan samayso oo micnaha ku tuso murugta kula qaybsado xitaa saaxiibka kuu sheegaya nin wuu noqon karaa oo wuxuu u noqon karaa nin garanaya waxa sharaftaada laakiin see ku ogaanaynaa waa horta ninka inuu ana sharafteeda garanayo hadalkiisaa ka dareemaysaa maalinkuu nin kula hadlo waxa alle wuxuu yahay akhrisanaysaa haddii aad qof maskax la tahay adiga weligaa hoos fiirin mar kastana waxaa be attention ku jira sharaftaada iyo cisigaaga iyo karaamadaada waa inaa ilaalisid waa mahadsan tahay markana waxaan siinayaa Samara Queen Nairobi tusaale ahaan gabdho badan oo fiican oo wadaada oo dhinaca diinta ku fiicana jooga haddaba sida ka muuqata gabdhahana la jooga weliba way badan yihiin 80% ama 99% waa la dhihi karaa laakiin dadka aan joogin Nairobi ee jooga qurbaha ama Soomaaliya jooga Nairobi gabdhaha jooga waxay ka aaminsan yihiin inay yihiin kuwa xun bal ka warna ayagana taas aniga beni ma sheegay waan arkay yani la dhahayo intee joogtaa Nairobi waaba laga carab Nairobi joogtaa dhahday bis waa laga carab mana aqaan sababtana ma aqaano laakiin sidaas ay tahay gabdhaha ugu xijaaban Nairobi joogan ugu asturo badan ayagoo asturan ee adana si dhaqankooda ma nooc kale ma sheegi karo way asturan yihiin banaanka marayaan oo ay sheeg way xijaabiin laakiin xijaabka bisle macna waxay u maleeyaan in gabdhaha macna dusha laga saar laakiin waajibaad badan والله سبحانه وتعالى دوش نجا سارة إنا إيشك أنا عن جودن لو بهنياي جور والبنا إيشك معنا قيمة الله سبحانه وتعالى وياله قبلها وحي كمدين وحياله أدونك وقالسن لا ترتمى كمدين مركز دي هذه قشنا سكدكتد قشن كاجل يا هانس لكن هذه قيمة سكويشت أو إس أسترتد قبل هذه حجابنت أسترنت الشر يشهدان با ينن حب ويشك ويكحجابنا نسام لكن هذا إذا كبر إيش يقول رقم التسدي معنا عيار سوقني ما أقول حريد معنا نلاش هذا لما فريق كريكت يعني إسقاب السوق في رسالهان هذا هرجسو قصيرة درجسنا مقلاي مع قانين قصص أدرجستين كلا قبره وحالة هاي أديجا جركده ويقابن جرتي هلا هان هوري هلا قالك قابن جرتي هاي قولي مركا تيرا وماضي مركي كرفنتي اللي قدوه كرفنتي ده ما يجي جحمنسا كرفنت لنا ديدسو مركز شيخاش مد كميد كشكينا وحودي اسيا مرك جوجا وحودهاي هدي الله سبحانه وتعالى سان u fadhiixiro sidaa lagu tuuro xitaa taxi lama saar iyadoo qaaban sideeda ay gaariga lagu qaaday ay sheega lagu riday godkeeda lagu riday marka Allah subhanahu wa ta'ala waxad adiga ka dalbatid ma ka waanaysid ama xumaan ha aata ama wanaag aata ma ka waanaysid adiga hadaa is xumeysid ama hadaa is wanaag Allah subhanahu wa ta'ala adiga ma wax qalad macna ay sheeg adiga nafsadaada la qalad ka gashay nafsadaada qalad ka gashay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay soo laabo soo noqo inaa u tawad keentid mar walba ishtoo way furan tahay Allah waa qafuur rahiim waay laakiin adiga kabarn hadaad isheeg Allah qiimaha uu ku yeelay hadaa adiga kabarn hoos isku dhigtid saarta u dhaqantid oo caalamka dhaqamada caalamka aad jeceela jilaya iyo romantiga jilaya iyo adiga hindi afaara filimka badsatay iyo wixii waxyaalahan horta qaar badan dhacay wax filmaanta ka dhacay ani marka ark wax Soomaali ka dhacayo iyo wax filmaanta same way isku egyihiin marka waxaan dhihi lahaa ani marka muslida la badsaday muslida la iska yareeyo جعل واحد جعل وجرا وواحد معناه شيء قدرنا لكن جعلك محله بهاي هاي إنه هاي مد معناه مستقبلا نيك قف كجعل هذه نيك كجعل أكره وداعد وحلو قرنا وحتى هاي مستقبل أيو كل روا جرك هذا متعاونايا مستقبل وناكسن أيو كل روا كلها إنا كجور سدا وباهنا مر البوك إلى الصناعة سيدا دائما كلكو إلى الصناعة لكن ككربين لو بري وش كركات هديو كأركو كو مركو رسالة وده ها جعنت سان taawashada koowaad waa salaanta assalaamu calaykum taawashada koowaad tii labaad hadii ku ogolaatid guduhu ku sii galaan laakiin hadaa kiris ka dhahdid nin waa waraab hadaa kiris ka dhahdid wuu ka leexanaya gabadha ma aragtay way xishood badan tahay iyadoo wax u baahan xishood badan tahay wallahi inaan been sheegin xitaa hadeert in dhaqan macna dhaqan ما يوهدي معنا قبل إيه حتى دقن حنت حتى أنا محاول إن حشات وكو دنبيو لكن لا بلا بربط هدي لا بلا بيرت هذا هروسي جلسة بده هرا وصير هذا عسى
laakiin ani marka waxaan dhihi lahaa gabar walba iyada qiimo isku yeeli karto iyada shaq sare isku qaadi karto sare isku qaado laakiin nimankan ani waxaan ku codsanaynaa walaalaheena waaye gabar weyn la dhalatay ii sheeg waa walaashiina weyn dhexeysa waa hooyadiina waa dal doontaan mar walba qiimo iyo qiimaha walaashaada maanta fiir hadii gabarna dhaday aniga walaasheeda nin ma sha Allah ii qabo nin maal qabena ii qabo ay asturantahay nolosheeda raaxada maxay galaan gabadhan iskaga baashaara daadad kabaran dhib waay sida gabadha walaasha uu naxaysa waa in adigana ii sheeg gabadhan kala shukaansanaysid uu naxay hadii mustaqbal aad ka rabtid walaal mustaqbal ka rabad hadii aad ka rabin ii sheeg iska dhaaf raabica su'aal la weydiiyay waxa la dhahay raabica gabdhaha imaamana ma noqdaan ii sheeg nabiyina ma noqdaan amiirna ma noqdaan maxay ku dhacday markaas waxay tiri imaamyaasha iyo nabiyada iyo sidoo kale amiirada kulliba anaga dhalnay anaga soo tarbiyeen anaga soo wanaajin marka gabdhaha qiimo ay leeyihiin qiimihiina markii waxaan dhila kor u qaada ragga Soomaaliyeed waxaan dhina gabdhaha qiimo ay leeyihiin mar walba garta way jiraan wiil wanaagsan Ilaaha barkeeyo intii kalena kulli anaga macnaha hadii maanta wax loo sheego kulli hadii qaadana alxamdulillah intii kalena waxaan dhila إله سوهنوني وضعت وصل كسر قبلها أنا وحدي لا قبلها كلمة لبضة معنا باهذا لبضة دين عويك جرتها أنا مدي مسدي كري قبرها القيام كرا قبرها سان اللي قلت كرا ميا وحدي لا قبلها إيمان كنا رقصة إيمان كيا ورقصة ما فهمتين مركا وحدي لا ويلش يعني سرن معنا يعني العق وحاسته يا إيش قالوها قلتاجن العق معنا وإذا ما نسوي حتى رسملان نولشة كم معان نول في عنين في عنينا هشيت ومستقبل في عن قصينا وإنه ما شاء الله درسين وذا عيارسين وذا فرحسين لكن هدي كبر منك العق وحسوا قلتاجد ونملاس كي ما ذاك النقطة أمين ملان تاجر نقطة وتلقى سدا وكتب أور أقادد هذا تمرك أنت جانسا هذا قبر حارنا عنك الهداية ما دام ملينا يا مساجك الهداية marka gabadh cuniga wadatay gabar yarna waa yaabisa marka cuniga wadatay gabadhi waxay dhahaday cunigan hadii kale aniga dilaha laga qabto iidan dhashay markaas waxa maama marka qaadatay cunig ka qaadatay lacag lagu arurna dhahay meel lagu dijina ma weydiiday marka maama ay sheeg ka qaadatay cunigi meel marka dhibaatada taas waaye ilmahan ay sheeg macna Ilaahay subhanahu wa ta'ala maadaama dhaxdiin uu keenay haddii baabu kugu dhacdo qalkaas way sameysmo laakiin ilmaha canqaabta macnaha ilmaha marsiina dhila ani gabdhaha aad waaba gashay oo ogtay adoo dambi gash ogtahay ilmaha ka jirna haddii Ilaahay ilmuhu ku siiyay oo markaas ay adiga ilmaheysatid ilmahaas iska korsa haddii ilmaha si wanaagsan u koris ama waxyaalo ma sha Allah wanaagsan qofkaas waxa laga yaabaa inuu noqdo qof macnaha macallin ama qof waxyaalo waxa laga yaabaa dambiga markaas inuu ka yaraado Ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii cuniga si wanaagsan u tarbiyaysid inuu dambiga ka yaraado laakiin hadda ka baran cuniga intee geenaysa cuniga wicil laakiin waxa adiga cunti lacun rafaad anagoo ii sheeg xitaa hooyooyinkeena ayagoo caadi xalaal noo dhalan ee rafaadka ogaanoo soo maraan laakiin kabar haddii adigoo cunig oo macnaha markaas intii qabsar lagu guursa ama cunig oo wicil oo kalanta dhashay haddaa cuniga iska turtay kabaran marka anu waxaan dhihi lahaa cunugiina iska tuurna haddii qalad waaba gashaan sama haddii marka horena ka foojignaan kartaan qaladkiinana ay sheegaa xad u yeeli kartaan xad u yeela oo dareenkiina xad u yeela waxaan dhihi lahaa jacaylkan faraha badan israacsiinaysa waxa la israacsiinaa iska daayaan dhihi lahaa waxaa ka wanaagsan mustaqbalkiina mana fiicno ceeb adduun iyo carab in ay sheegada isku keento ma fiicno mustaqbalkiina ay ilaalsadaan dhihi lahaa wiilashana waxaan dhihi lahaa gabdhaha laga taxadiro gabdhaha aniga dhahayaan qubsira rabnaa walaa waxaan dhihi lahaa waa wax iimaan darre Ilaahay nooma keen horta marka hore aniga ma aaminsan ilaa hadda waa la yaabanahay wili iniga hadda niga maqlooya laakiin waxaan dhihi lahaa ii sheeg gabdhaha oo dhahayaan aniga macnaha ma gabdhahaas ma aqaano wallahi waxay yihiin ma sheegi kari I don't know sababtoo ah waxaas waa wax laga duceysto waaye imtixaan waaye marka waxaan dhihi lahaa Ilaahay soo hanuuni Ilaahay wadada saxda dhamaanteen Ilaahay aan wada hanuuniyo wadada saxda aan ugu hanuuniyo insha Allah gabdhahan waxaan dhihi lahaa sharfa kor isku qaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala qiimo ayuu niyeelay qiimihi waa in mar waliba sheeg aad xad u yeeshaan aad ilaalsataan aan dhihi lahaa qashinaas ka dhigana waa mahadsan tahay Samara daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka dood ah oo aan uga doodeyno guurka qodbasirada ah ama midka la qariya dhibaatooyinka dumarka ay kala kulmaan Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Nairobi waxa barnaamijka qayb ka ah dad ayagana degan xaafadda Islii oo dooda ayagana qayb ka ah haddii uu jiro qof fikir haya ama su'aal qaba waan siinayna ani horta dood ma qabi laakiin hooyooyinka ayaan wax u jeedin lahaa talayar oo dhihi lahaa gabdhihiina la saaxiiba gabadha haddii loola saaxiibo mar waliba wax walba oo kusoo gudboonaado hooyadeeda la tashanaysaa marka waxaa laga yaabaa inay hooyadeeda ula tashato marka ugu horeyso waxaa dhihi lahaa horta hooyooyinka saaxiiba ka dhigta gabdhahan hooyooyinkooda u dhawaada ayaan dhihi lahaa
dheena sida Fartuun Habi oo kale ayaan aragsan Queen Samara dhammaantiin waan wada salaamayaa hortareeta ayaan aragsan sida ay sheegtay walaasheena hortareeta waxa sakane lagu waayay sanadana aan lagu helin waa gabarnimo gabdhaana mar walbana waa la talin lahay inay gabarnimadooda ay doortaan sidoo kale Fartuun Habi way sheegtay inta adiga nafsadaada nin aad u haliigi leed shaqayso shaqadana waa sharaf ma garatay waxaa dhacday qiso yar gabar ayaa waxay dhahday familkooda gabar ayaan u ahay reer cidii nina loo guuriyay hanti badan oo ku baxday markay ku baxday gabadhii aakhir habeenkii la galbiyay habeen ku xigto ninku wuxuu dhaawayga bis maxaa inta qarash oo iga baxday iyo gabarnimadeeda isma laha dhibaatooyinka maanta Nairobi ka taaganna waa midaas oo kaleete mid kaleeto qiso kaleeto oo dhacdana waxay tahay oo gabar ayaa nin Nairobi joog waxay ku guursatay waxaan ahay gabar wiligeena leema soo guursan intay soo guursatay ayay laba cunug hore u soo dhashay markii ay soo dhashayna cunugii saddexaad ayay ninkan uurka u qaaday istaalka markii la geeyay naagta dhakhtarada ee markay fiirisay waxay dhahday waa cunugii saddexaad ee ma ahan kii u koowaad ninkiina meesha ayuu uu ku naxay gabadhina sidii lagu furay waxaasna ayadaa isku keenta hore hadda soo guursatay guur waa sharaf ma ahan ceeb waad sheegi kartaa ragana dumarkana sidaas oo ka qiyaan noocaas oo kalena way ku jirtaa barnaamijkan inta saaga baxay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa gabdhaha fikradaha saliimka ay ka dhiibtay barnaamijka dib ayaan ugu soo laabanayaa ayaan aragsan waxaa jiray ama aad tiri gabayar oo waxaa jira aan ugu talagalay ragga bal gabaygaas magaciisa iyo waxa aad ula jeedo inaad tarisay gabaygaas marka gabdhaha Soomaaliyeed aan horta aad Ilaahay u sharfo Ilaahayna ha karaameeyaan leenahay horta waxa u maleynaa dacwo badan oo ilaa ragga maanta dhan igu socotay nin badan cawada badan way saar doonaa laakiin ani way dib uma arko gabayga waxa ugu magac daray qodbasriya ku baday haddii xoogaa maaragtay aan isku toosin waayna abwaan miihi fanaan miihi xoogaa gabar yar waxaan ahay dareenkeeda ka hadashay imagine markii barnaamijka la ii sheegay wixii markaa la gudboonaa gabayga waxaan leeyahay waxaa la yiraahdaa qodbasriya ku baday ma qiimahaagii baa lumay qulubta miyaad ka dhimatay qasaare maxaad ka doonan hantida aan hayna iyo amaanadan hayna iyo hantidu waa gabarnimo hadraawi maxaa u loogay halyeygii aabaheen intii hanad nala dhashiyo haboon hooyadeen macaan huqiyo ciil maxaad u badi ninkii dhuqdhuqaysi rabo dhabada qaad ma tiraahdo inaad dheeman tahay ogaatid gabdhaha la hadlayaa ninkii dhuqdhuqaysi rabo dhabada qaad ma tiraahdo inaad dheeman tahay ogaatid dhalaan aabihii inkiray hadduu uurkaaga galo haddaad waliciisa qariso beriba wuu soo bixiyay adoo bilan gabar ahaa banaanka maxaad la tegi marka intaasaa kusoo gabagabeynayaa waadna mahadsantiin gabdhahana sharafta leh Fartuun Habi dhibaatadan maanta dhan laga doodaya gabdhaha kaliya ku dhacda waayo haddii qudbasare ay imaato inta badan ninka ragga waxba kama dhibto oo gabadhiya ku dhacda taas waa wax xaqiiqa ah oo qof walba og yahay arrintaas see looga gudbi karaa marka oo maxaa xal ah maxaa gabdhaha la gudboon sees uga gudbi karaan gabdhaha marxalad badan ay uga gudbi karaan zaid too much maxaa ninka maxay u daba xiraan hooyada kaliya dhash maanta barti waa ka gudbi karaa waxa hada israacsiyo le raacaysa laakiin hada israacsiinin waa ka gudbi kartaa amiirada adduunka hada iska dhigana waa ka gudbi mahayno marka hada adii sharaf iyo qiimo isku yeeshid waa ka gudbi kartaa anigoo nila hadlaayo niman la kasaayo taajir ahaado ama wadaad iska ahaado waa jiraan way kula imaanayaan laakiin adaa laga rabaa adigay ka suurtoontaa nacamta ilaada waa adiga ina is sharaftid adi marka is sharaftid waa ka gudubtayba waxa kale loo gudbi karaa waxay tahay hada dhahdid walaala ani wada toosan rabaa wadada toosan hada taqaanid you welcome hada aqooni maaho فلله نو كلا ود محا أني أذين سكاكين وامايو لكن أنا وحدي لهاي هدو كل إماده كير إسكده هدا شقيه سني شقيسه هدا هوي والد لجوكتد أو حبرنا سنة وحد إسكبره جعل وجرا جعل مجرى الوجيدن عمل هدات أباي سمارة ده هذا جعل وجرا قفك وجعلان كرتا جعل درتيس نو أسمين كرتا لكن أنت أسمين واقهرتي جعل درتيس نو أسمين كرتا لكن أنت أسمين واقهرتي كرتا سيدا وهرتي كرتا الله سبحانه وتعالى
ayaa hor istaagaysaa ilaahay ayaa baryaysaa allow qalbigayga ninkan oo u cararayo usii jeedo ibliiskana garab ugu yahay allow iga qaba ayaa dhihi kartaa waa ka gudubta awalan koow wataani waxa uu gudbi kartaa allow wuxuu dha ummadeeda markaa jiijifta addoomadeeda soo kacay barya salaatuleela bari kartaa ilaahayo rabbi raxmaan oo mid guur xalaal rabo sharaf iyo cizi waalidkee u yeelaayo oo anina ii yeelaayo allow ii sahlaa dhihi kartaa wuuna kuu sahlaayo allo sharaf waliba iyo dhan walibane alla haddaa ka tugtid waad helaysaa ana waxaa dhilaa marxaladda lagu gudbaa waxay tahay waa inaa alle u dhawaataa oo alle baridaa taas ayaa u gudbaysaa tan kalena waa inaa shaqaysataa haddaa shaqaysatid xoolahaada ayaa ku tashanaysaa iyo dhuuntaada isbaraysa gacantaa iyo dhuuntaa lama fahmino marka laakiin haddii halkoo bil bees luu sii bishii labaad luu sii barahe waa balaarahe maana beesada la iska rabaanay marka waxaa dhihi lahay beesadaha nii soo celi sarta iska diida marka iban xataa oo ku baraaway waxaa jira rag oo ku dhahayaan abaay waxaa doonta iweediino ana waa leedhahay maxaa iniga niida waxyaalo badan aniga u dhacaaba jirneero ilaa meeqa sana jooga iweedii waxaa ratid waa ku cadeena jaala ka dhiga beesa ku siina wax ma ka rabe hadii bees isis wax iiramaysa camal see macquul ku tahay dhahay walaashay taa been waa hal bil marka ku sii bisha laad waxay dhamaa aan beer ma ka soo fulaa beesada soo bodbod hay waa see ku bodbodahay aan sharfaale guriga joogaay marka waxa iimaanays anima isii ku dhahay miidhiimi abaay waa nuu kala wad waay marka waxaa ku ro inuu ka tago marka waxaa waa adoo gurigaada joogtid idab iskaaga yeeli kartaa oodan bixin teeda kale dhibaatada badan waxaa keenaysa waa outinka iyo cashada la aadayo magaalada la aadayo waxaas dhan roo ka saar ninka ha kugu imaado guriga hooyada irida fur halkaa fadhiisi wuxuu sheegaa nus ha laga maqla diriskee meeshaas fadhidhe laakiin outina raaceeda iska soo horjeesateen maxaa dhici karo waxaa dhici karta biri inuu ku tijaabiyo magaalada kugu indhisracaadiyo gabaraan nahni shaydaanku wuu naga fudud aad uu noogu dhow yahay waa dumarkeena waxaa la shaydaanka zaa'id ugu dhow yahay xididaheena xataa wuu ku shaqaynaya marka waa inaan iska celinaa oo iska shaydaanka iska naarnaa outin waa aadi kartaa gabdha israaci kartiin waa aadi kartaa markuu ku wadaa gabar saaxiibtay wadaa dhe baroowe wiilaa ku dhahay ani oo ka imaaday Canada waxaa ku dhahay waa kuwada uu dhahay markaas aad okay waxaa baxeen ahaan dhahay milyan gabar la guri ii joogto ii faa'iisadeena dhahay anaga dhan Cabdiraxmaan keena waa dhaay ma qabiilkiin dhan tan wada dhaay marka waxaa dhahay admi dhina waa kulmeena waa is arkeena outina geena midina hanabada kuwan geesa ka fadhiyana aniga geesu sheega dham xadhi ma jiro ma yasda ba kaliya ma ku kasa kaliya ku raaci jidka iyo dagsata bixir sameeysan maxaa ka saa ku dhahay gabarnimada kaliya looma cabsado nafsadaada xataa waa inaa cabsataa nafsadaada waxyaalo badan lagu sameyn karaa jiro cirbida lagu duri karaa kaliya laga baxsan karaa wax waliba ma ahan gabarnimadaada iyo mustaqbalkaada kaliya inaad fiirisid nin dhan inuu dhib socdo yahay la ku fikir adi oo dhibaato ku keen karo dhiiqa lugta ku gelin karo waa mahadsantahay Fartuun Habi Samara adigana maxaad ku darsanaysaa maadaama gabagabadii barnaamijka aan soo gaarnay si loogu gudbi karaa arintan maxaase gabdhaha la gudboon waalidiinta roo inaan la hadlo waxaan dhihi lahaa gabadhaada ha ku qasbin macnaha ay sheeg nin kale iyo waxaas iyo waxyaalo kale sameyn karto iyadoo qof kale jecesha haday ku keento qofkaas qof kale ha ugu daran macnaha yacni qofka jecesha ku qanacsan haday ku dhahdo hooyo qofkaasaan rabaa inay ugu darto si sharaf leh waa wax ka fiican ma ilaa wax haysanin waxaan dheelaa ay sheeg qofkaas ku dar hadii kale hadii dad inta qof kale ugu la carinaysa waxa laga yaabaa qofka inay sheeg macnaha la dhuumato ama meel kale isku soo mehersadaan waxyaalo kale sameeyaan hadhowtiina wax walba ay sheeg dhici karo Soomaan laakiin waxaan dhihi lahaa hadii qofkaas qof fiican yahay oo si sharaf leh kaaga soo doontay oo sidii diinteena faras kaaga soo doontay qofkaas waxaan dhihi lahaa si aan dhihi lahaa nin kale iyo nin lacag leh gabadheeda siina iyo nin kale aan ku daray mid qaraba ku daray wax qof walba waxa fiican qalbigiisa waxa ku jiro mas qofku jecel yahay in la siiyo si dhad adiga dhibaato ee kaaga imaanin sidoo kalena wiilashu waxaan dhihi lahaa gabdhahan way nala dhashteen naxariis u sameeya insha Allah ilaali ayaan dhihi lahaa mar waliba gabdhaha sharaf ay leeyihiin Aragsan maxaad ku darsanaysaa adoo soo gabagabeynaya maadaama waqtiga uu gabagabayahay walaal horta aad baa u mahadsan tahay waan u mahad celinayaa Honkebel TV iyo walaalaheena kaamirooyinka noo duubayaba horta gabdhaas waxay ka dhawaajisay iyo walaashay Samaaraaba hooyooyinka in la saaxiibo hooyooyinka horta marka la saaxiibayso adu baarimo u tahay ma ka keensan kartaa micnaha in dareen wax kasta kula wadaagi kartid horta hooyooyinka iyo waalidiinta Allah noo daa intii waalid leh intay ka dhimatana ilaaha qabriga u qaboojiyaan leenahay hooyooyinka in la saaxiibtid waa wax micnaha adiga kasban kartid wax micnaha qofka maamada qof walba waalidka dhalankiisa uu kala jecel yahay dhahay dhibkan wuu la soo maray laakiin qof walba suu asiga ugu naxawaaye hooyada hadaad lugaa u riixdid abaari u noqotid dabcan wax kasta dareen kasta inay kula wadaagaysa waa aaminsanahay iyo sidoo kale aabaa xitaa yaanan ka saarin xitaa iska dhaaf walaalka adiga hadduu wiil gabadha horta wiil dhashay aad u nasiib badan ma sha Allah ilaaha noo daayo wiilasheena la saaxiib
wixii idab daray wixii aqlaaq xumaa iyo wixii nin uu sameyn jiray asaga laga yaabaa inuu maxaan ku raatay uu og yahay oo de wax waa coach wad leeyahay oo de isla wiilku wiil yahay kala saaxiib marka asiga walaalo saana jirto ilaahana tala saaro maxaan ku raatay walaalahana kala saaxiib oo arinta aysan kaliga kugu ahaan waxa qarsatay way ku qarsadaan dhahan marka waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan warka kusii dheeraado ma rabo waa in waqtigii uu sii cararayo gabar kaste maxaan ku raatay ama hooyaha ahaato ama maxaan ku raatay hala soo furo ama ayaa maxaan ku raatay gabar oo maxaan ku raatay aan wali guur iyo marxalad la kulmin ha noqoto ilaahay subxaanahu wa ta'aala horta inuu xifdiyo marka horeeto oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo wixii qalad nala soo doonto uu ayaga ku celiyo oo shartooda ilaahay uu naga duwo mideeda kaleetana dadaalaa ugu gaaraabal inaan dadaalno oo afka ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo adilmadaas wuxuu noogu sameeyay inaan waxna ku qabsano asaga ku caabudno aan isku difaacno afkiina isku difaacaya laga afbadin ninba horta naaka af Soomaali badina hadaa u aragti ninka inuu ka af Soomaali iska dhaaf ku af Soomaali badan tahay soo tuurin mid adiga ka af Soomaali badan tahay tuurin aniga hadda in la hadlaanin iga af Soomaali badan inaan shukaan ma jecayno marka waxa ogaay in uu wax kasta iga dhaadhicin karo waa ka carraa marka dhageysta saacad ama 2 saacadood la sheekaysto daan arkin ninka inuu iga matarweyn barada jawaada ma fahanti marka hadaa dhahdid ninkaneeto ma uu qurux badan yahay ama lacag uu leeyahay ama maxaan ku raatay koow horta waxa fi dadka fidneeyo lacagta waay ilaa horta naga qabto hadii xitaa nin lacag la helayna xitaa mid oo maaragtay kisto gabar dhalo gabdhaha u dirnaxayo hooyada sharafteeda garanayo anuu waxa adiga qiimahaaga garanayo ku tilmaama aan horta adduunka waxa u jeclahay nimanka u tilmaama gabdhaha bara inay ayada sharaf leedahay ee asaga micnaha aan ka faa'iideysanin marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala hana xifdiyo waxaan kusoo gabagabeynayaa marka guntiga gunaadka oo dhigaya gabdhaha ogaadaan inay sharaf leeyihiin maxaan ku raadaay nimanka iyo waxaaneeto la leeyahay shaydaana qaaday iyo maxaan ku raadaay aan wadaraanka ka dambadiyay maal dhahay jiray inay iska daayaan xitaa hadaa u aratid in xogaa xaaladda si kala tasoon ilaahay subxaanahu wa ta'aala soon ku dhahay جمعية قميص إسنينتي ثلاثة محلي إسنينتي يا قميص تصون إلهي بري إله سبحانه وتعالى واكبر يجور حلال كابر يدي حتى هدوره بإله ورساقد هذا واس هذا كفالة قاسمة أنا مركز دلنا ما أبي هو ذي موجا إن أيا ودلنا سما إله مركز عروش كجرو إيه كفالة قادو حنا إله كو كفالة قادايو ninka haduu horta aad waxa ugu xumaanay wiilasha oo maartay kisto faqiirka oo niyada ka jibino in ayagana aan ku raacnaa jeclaan la oo ku qaadano aan la shaqeysano ilmaha la korino barna micnaha inay qiimo leeyihiin inay rag yihiin in lacagtaaneeto deemaanta helaan ay bari dhamaanayso aan isla wada korsano ilmaha markaas horta gabdhaha ay laftigooda qayaana badan yihiin maanta wiilasha jafaayay gabdhaha laftigooda qayaana badan yihiin waxaana aan hadda isleeyahay waa laga jiraaya waxa waaye wiilasha sharafta la rabo oo maaragtay aan hotel ka bixin karin ama aan outing inta badan geegeyn karin oo arooska say rabaan fanaaniin maxaa la jir wax oo adigu leeyahay habla arooskooda aad u shidnaa ani arooska inuu shidnaado lama rabo waxaa la rabaa nin qiimo leh inuu guursaday aan way garanayo waxa aniga ahay ayaan ahaa sharafteeda garanayo oo markii la dhaho xaaskaaga maasha Allah xaas sharaf la qaba ilaaha iiday yaa shukaansadaa gabar sharaf la shukaansada intaas oo kuma filno أنا horta inta la soo gaweenin maadaama maanta dhan doodas aan ku jirnay waxa rabaa ina gabdhaha sheekeer aan daawada ina u sheekeeyo hadda ka hor baar wax yar le waaye beel dhow ku yaal jir waxa ku qornaa boorkiisa baar aamo kadib xariifa arka koro fiiri yaa kan way anfaca u dheeno baarka waa gal wuxuu ka soo cunaas ka soo bixino mid shaqaalaha kamid ah ee istaw socotaa wax waa cunta lacagta aawe kor ma fiirsid miyaa shaqaalaha kamid ah baar aamo ku qornay maxaa yaale markaas way xanaaqay shaqaalaha baar aamo iska dhiibo oo lagu qoray babaasha dhan waa la bedelo basheekada waan cunay waan iska dhiibay waa macna lacagta ahna soo lagu qoray ma sha Allah marka waqtigan sisan ilaahana xifdiyo dhamaantiina waa idin jecelnahay jaaniskan sisan Honkebel TV aad baan ugu mahadcelinahay TV-gaas aadan u jecel waan taageersanahay walaalkeena wuu maasan yahay kaamiraamayaasha maanta u taagna aad bay u maasan yihiin gabdhahan walaalaheena sidoo kale barnaamijka ila wada ayagana way maasan yihiin Allah subhanahu wa ta'ala mahadis kale oo waqtiga iyo jaaniskana si halkan nagu kulansiin insha Allah jannada ayaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baray inuu nagu kulansiin insha Allah guud ahaan daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dooda ahaa ee aan kaga doodeynay guurka qudbisirada ah iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Nairobi barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdishakuur Faarax igale barnaamijka waxa igala qayb qaatay Samara Kuwin ayaan aragsan iyo Fartuun Habi sidoo kale waxaan mahad gaar ah u celinayaa gabdhahan quruxda badan ee waqtigooda iyo jaaniskoodana si ayagana u mahad celinaya sidoo kale waxaan mahad gaar ah asagana u celinayaa ama aan u celinayaa cabdirashiid obsiye iyo cabdifataax jante oo ka qayb qaatay barnaamijkan quruxdiisa inay aad daawataan intaan barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmeyno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah